وهجاك داود اللي إحنا كوا سعنا برشة في استوديو سدحين مقالة هرقيسة يا وركنا يدي كيمانا يا هذانا إنه يقنا دنكاسيو حالة مسلمين تيرهينجا كسو جيدا دالك مينمار مسلمين تربضان أو كسو جيدا دالكاسي مينمار قومية دلو يقانا روهينجاها أي دالكاسي كاقاحي يقاو قاحي ودامكالي كدي مركي أي دولة دالكا عيدا مديدو يولي بداد ديما كلا عميساني أيو جيستين حسوق بان أو naxdin badan laga soo bilaabo 25 August sanada 2017 muddadii waqtigaasi ka horeysay ma jirin xasuuqyo sidaas u baan oo lagu hayay dadka ka soo jeeda qoomiyadda Rohingya ee wadankaasi Myanmar ee muslimiinta ah balse waxa jiray bahdilaad iyo haybsooc lagu hayay intii ka horeysay 25 August 2017 oo loo geystay dadkaasi xasuuq baan dadka Rohingya ee Islaamka ah waxay u qeexeen wadamo tiro badan oo la jaar ah wadankaasi Myanmar iyagoo ay kamid yihiin wadamadaasi wadanka muslimka ah ee Bangladesh in ka badan 1,500,000 oo qof ayaa lagu qiyaasay in ay halkaasi qaxoontiyahan u gaareen dalka Bangladesh gaar ahaan gobolka waqooyiga bari ku yaala ee dalkaasi Bangladesh ee loo yaqaan Cox's Bazar haddaba khadka si toos ah hadda waxa ugu jira Maxamed Cali Cadaani oo kamid ah dhalinyaro Soomaaliya oo iyagu deegaankaasi booqday si ay wax u taraan walaalahooda Islaamka ee ka soo jeeda qoomiyadda Rohingya ee ka soo qaxay xasuuqa loogu geystay dalkooda Myanmar gudihiisa Maxamed Cali Cadaani waxaan filayaa inaad si toos ah ii maqlayso hadda waxaad ku sugan tahay magaalada Cox's Bazar ee waqooyiga dalka Bangladesh waxaad adiga dhalinyaro kala soo booqateen muslimiinta ka soo qaxay dalkaasi Myanmar ee loogu geystay xasuuqa ba'an Maxamed ugu horeyn waa sidee xaaladda dadkaasi Rohingyaha ee aad idinku booqateen aad baad u mahadsantahay Luqmaanow dadka Rohingya ee ku dhaqan wadankani Bangladesh waxa ay gaarayaan in ka badan 1,500,000 oo qof dadka badankooda oo gaaraya 725 waxa ay ku jiraan oo ku nool yihiin Kama ku yaala magaalada Cox's Bazar oo dhacda waqooyi bari wadanka Bangladesh meel u jirta 45 kilomitir waa hagaag Maxamed xasuuqan loo geysanayo dadka Rohingya qoomiyadda Islaamka ka soo jeeda Bangladesh hadda qaxoontiga ku jooga kuwa kale wadamada kale ee la jaarka iyo kuwa caalamka ay u farxadeen xasuuqaasi ka yaaceen goorma bilowday Maxamed xasuuqaasi se yaa bilaabay Luqmaanow xasuuqa dadkan lagu hayo waxa uu bilowmay loo diiwaan galiyay inuu bilowmay 25 August 2017 oo markaasi xasuuqa dadkaasi lagu bilaabay waxaana markaasi xasuuqa bilaabay dadka local Buddhistaha ah oo kaashanaya ciidanka militariga ama awood ka helaya ciidanka militariga marka waqtiga rasmiga ah ee xasuuqa dadkaasi uu ku soo bilowmay waa 25 August 2017 wixii ka horeeyay in sidaan oo kale loo xasuuqay ma jirin in la cadaadiyo oo markaasi la jirdilo ama jeelasha lagu guro mooyee sidaan oo kale uma jirin in xasuuqa sida u baahsan dadkaasi loo geysto وهجاج محمد دولة بنجلاديش dadkaasi qaxoontiga iyagu sidee u qaabileen markii ay dalkooda soo gaareen Luqmaanow dawladda Bangladesh si weyn ayay u soo dhaweysay dadkaasi qaxoontiga Rohingya inkastoo ay hadda joojisay inay qaxoonti dambe qaabisho maadaama aanay taagi awoodba u haynin xaddigaasi tirada badan ee wali ku soo qulqulaya dalkeeda sidoo kale makaamamkina ay buuxsameen marka laga reebo dadkaasi ay diiday dadka cusub ay diiday mooyee dadka hadda ku sugan Bangladesh qaxoontiga ahi waxay u soo dhaweysay wadankani Bangladesh waxay u soo dhaweeyeen si milgo sharaf iyo miisaanba leh inkastoo iyagu ay yihiin dawladda iska dawladaha soo koraya oo aanay awood u haynin dadkaasi tirada badan ee wadankooda soo galaya haddana xukuumaddu waxay ka leedahay istaraatiijiyad cad oo waxa ay sheegeen inay dadkaasi wali sii hayn doonaan oo xeryaha qaxoontiga ku sii hayn doonaan dawladda Myanmar talaabo ma ka qaadan xasuuqan loo geysanayo muwaadiniintooda dalka u dhashay ee Islaamka ee qoomiyaddaasi Rohingya Maxamed oo inta la socoto Luqmaanow sharciga uu ogolaanaya in
dadkana deegaankooda lagu dhex xasuuqaa dowladda Myanmar waxay aaminsan tahay in dadkan aanay wax xuquuq aasaasiya aanay ku lahayn iyo wax xuquuqaba aanay ku lahayn waddankan oo ay yihiin dad soo galooti oo halkan soo degay marka sababta ugu weyn loo oran karo in dadkan waa loo xasuuqaya waa in dowladduba ay aaminsan tahayba in aanay dadkan u dhalan waddanka Myanmar xukuumadda Myanmar maxay ka tiri inta la socono baaqi badan ba caalamka ka soo baxay waa la cambaareeyay dalka Gambia oo kale isagu dacwad baaba ka gudbiyay waxyaabaha maxay ka tiri xukuumadda Myanmar ma ka hadashay Maxamedow luqmaana waxaad moodaa xukuumadda dalkaasi Myanmar iyo militarigeeda ka kaninaan wali dhag jalaq u siinin baaqyadii beesha caalamka toddobaadyadii u dambeeyay waddanka Gambia ayaa maxkamadda ICJ geeyay dacwad ka dhana waddanka Myanmar wali maxkamadiisu way socotaa marka laga reebo Gambia waxaad moodaa dawladihii kale sheeya ama dawladihii Carbeed dawladihii waxaan ku reer galbeedka inay markaasi iskaba ilaaween dadkan Rohingya ah iyo xaaladda ay ku sugan yihiin iyo sidoo kale inay dawladda Myanmar ku cadaadiyaan inay dadkaasi xasuuqa ka dayso ugu dambeyntii Maxamed dawladaha islaamka ee caalamka haday noqoto kuwa awoodaha badan leh iyo dawladaha kale islaamka ee laftigoodu bariga dhexe ku yaala arintan ma ka hadleen dadkana taageero ma muujiyeen maxaa la oran karaa dawladaha islaamka way ka dhana arintaasi inta la socotaado luqmaana waxaad moodaa in dawladda Carbeed iyo dawladda Islaamku ay afku juuqda gabay oo ay ilaaween xaaladda dadkani Rohingya ah marka laga reebo waddanka Turkiga oo caawimo yar soo gaarsiiya dadka marka dadka wareysatay waxay ku sheegayaan in dadkii Islaamka ah ay isku dhiig ahaayeen ay ilaaween oo halka ay dhigeen iyagu ma jiro hadda waddanka Gambia marka laga reebo waddan kale oo u dhaqdhaqaaqaya inuu dadkani Rohingya ah qaxoontiga ah wax la qabto xadgii ay noqoto xaq sharciyana xadii ay noqoto in dawladda Myanmar ay ku cadaadiyaan in dadkani ay ka daayaan dhibaatada waxaan moodaa in wadamada islaamka yada dhinacoodii aanay ayba iska ilaaween baa la oran karaa oo uu afku juuqdu gabay daawadayalkaasi waxa waa Maxamed Cali Cadaani oo ku sugan deegaanka Coxbazar ee dalkaasi Bangladesh isla markaasina khadka si toos ah ugu warmay telefishinka bulshada deegaanka Coxbazar ee waqooyiga dalka Bangladesh waxa ku sugan in ka badan 1.5 milyan oo qof oo muslimiin ah haddaan si kale u raahdo 1,500,000 oo qof oo muslimiin ah ayaa deegaankaasi ku soo qaxay kadib markii lagu xasuuqay dalkooda Myanmar Maxamed ayaa kamid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo maalmin la soo dhaafay halkaasi gaaray si ay wax u taraan intii ay gaari karayaan dadkaasi islaamka ah ee halkaasi qaxoontiyada u jooga isla markaasna waxa uu kamid yahay dhalinyarada iyagu wax ka barta dalkaasi Bangladesh Maxamed aad baad mahadsantahay